shirkan ayaa waxa uu daba socdaa shirweynihii lagu meelmariyay istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo ay si wadajir uga soo shaqeeyeen wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirkii maanta ayaa waxaa diiradda lagu saaray dhamaystirka dhaqangelinta istaraatiijiyadda iyo mideynta fariimaha wasaaradaha ee bulshada lagu wacyigelinayo. Fariimahaasi ayaa waxaa ka mid ah ciribtirka qabyaaladda, soo bandhigidda waxqabadka dowladda, horumarka dalka, dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish. Waxaana goobjoog ka ahaa agaasimayaasha warbaahinta dowladda iyo agaasimayaasha wasaaradaha warfaafinta ee dowlad goboleedyada dalka. Waxaa sidoo kale madasha fadhiyay qaar ka mid ah ururada u dooda arrimaha suxufiyiinta. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo furitaanka kulan ka hadlay ayaa sharaxay waxyaabaha shirkan uga duwan yahay shirarkii hore. sidii aan dadka Soomaaliyeed ugu gudbin lahayn fariin midaysan oo xoogan oo leh itijaah faa'iido u leh dadka Soomaaliyeed. waxaan rajaynayaa intiina badan inaad haysataan ajandaha shirka haddii Ilaahay uu yiraahdo. waxa ugu weyn ee aan xoogga saari doono maalmaha soo socda waa laba ajende. mid waxa uu yahay bal sidii aan u midayn lahayn fariimaha wacyigelinta iyo wargelinta xambaarsan ee dadka Soomaaliyeed ay u gudbiyaan wasaaradaha warfaafinta iyo hay'adahooda warbaahineed ee hoostaga, isla markaana loo heli lahaa xarumo akhbaaraadka aan ku wadaagno. wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada kala ah Hirshabelle, Galmudug, Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa madasha ka hadlay waxayna bogaadiyeen shirkan. waxayna sheegeen in dadaal ay ku bixinayaan wacyigelinta bulshada iyo la dagaalanka argagixisada. Senator Muna Cumar Xasan oo ka mid ah guddiga warbaahinta ee aqalka sare ayaa xustay in muhiim ay tahay in kor loo qaado aqoonta shaqaalaha ka shaqeeya warbaahinta si loo helo xirfadlayaal fariinta loo baahan yahay gaarsiin kara bulshada. markaan doonayna marka inaynu hore u soconno ama aynu wax qabanno ama aynu shaqeyno koow horta waa in la wada tashado la isku yimaado. waa in agaasimo Cadaalo ama wasiir Maareey ay la kulmaan agaasimaha iyo wasiirka maamulka markaa ka jira la keena wariyaasha xagga laga keena la yiraahdaa imaada wasaaradii lagu tababara ama la qaada tababarayaashii oo la geeyo xarumihii la yiraahdaa. dadkani waxay ka tirsan yihiin wasaaradda warfaafinta ee jamhuuriyadda, marka waa in dadkan la tababaro. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo shirkan furay ayaa sheegay in waajib qaran ay tahay in loo adeego bulshada Soomaaliyeed. wax kasta oo shacabka Soomaaliyeed u dan ah ay ku midoobi karaan, sharafkooda iyo karaamadooda ku soo ceshan karaan, dawladnimadooda ku xoogeyn karaan, amnigooda ku sugan karaan, walaaltinimadooda ku muujin karaan inaanu u tusno oo mas'uuliyadaas qaranku nasaaray si hufan u gudanno ay weeye waajibaadkan halkan u fadhinaa. shirkan ayaa waxa uu ka mid yahay shirarka ku jira tubaha shaqo ee wasaaradda warfaafinta ka oo ka soo farcamay tubaha qaranka ee xukuumaddu ay leedahay. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka.